السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن كسو دوادا برنامجكيني قصooyinka qisadan maanta ayna waa qiso ku saabsan wiil iyo oday. nin oday ah ayaa maalin maalmaha kamid ah waxa uu fadhiistay geed hoostiis isagoo aad u daalan. waxa uu watay sac, faras, ay. intii uu nasanayay odaygu ayaa wiil yar u yimid oo weydiiyay, adeer maxaad saddexdan xoolo la socotaa? odaygu wuxuu ku qoslay wuxuuna yiri, saca waa mid igu caawiya helidda caan, farasku waa kan igu caawiya socdaalka, ayguna waa mid ii digaya haddii khatar jirto. wiilkii yar ayaa yiri, markaa adigu maxaa tahay? odaygu wuxuu muddo yar ka fikiray, kadibna wuxuu yiri, anigu waxaan ahay maskaxdii xulashada. waxaana ogahay mid walba waxa uu ku fiican yahay una adeegsada sida ugu fiican. taasi waa xigmadda nolosha. xigmadda qisadan ku jirta waxay tahay, qofka caqliga leh ma aha mid wax badan haysta, waa mid og sida saxda ah ee wax yar looga faa'iideysto ama si wanaagsan looga faa'iideysto. xigmaddan waxayna tusinaysaa inaanay wax badan haddaad haysato aanay wax badan ku kordhinayn, sidoo kale haddaad wax yar haysatana aan wax badan kaa luminayn. laakiin muhiimaddu ay tahay inaad sida saxda ah aad mar walba nolosha uga faa'iideysato, shay kastana aad sida saxda ah iyo sida uu ku habboon yahay aad uga faa'iideysato.